dad badani waxay moodaan inay diinta islaamka ay ku dhisan tahay ragga oo ninku uu yahay ninka dabadda u baxaya ee u soo quudinaya reerka hadduu u dagaal yimaado ninka gurmanaya ee reerkii difaacaya xaqiiqada iyo waaqicuna sida uu ka duwan yahay haddaynu dib iskugu noqono oo taariikhdii nebi maxamed sallallahu alayhi wasallam iyo taariikh alislaamba aynu eegno waxa inoo caddaanaya inay gabadhu ka muhiimsan tahay ragga oo meelo badan marka laga eego oo ilaahay subxaanahu wa tacaala suurati aali cimraan sheeko inooga sheekeeye sheekadaasoo ah sheekadii maryan hooyadeed imra'ati cimraan marka ilaahay subxaanahu wa tacaala ballan bay ugu qaaday inii nadartu laka maa fii batni muxarara bay tiri ilaahayow uurkan aan sido adaan ku siiyey ayadu marka waxay rajaynaysa oo ilaahay ka rajaynaysay inan uu noqdo oo masaajidka masjid alaqsa ka shaqeeya oo ama khatiiba ka noqdo ama imaam ha ka noqdo ama khaadim ha ka noqdo laakiin waxay rajaynaysa bay culammadu idhaahdaan inuu noqdo wiil ama inan masaajidka mas-uuliyaddiisa qayb qaada ilaahay bay u hortay markaa ilmaheedii inii nadartu laka maa fii batni muxarar waa khaalisan lilaahi subxaanahu wa tacaala ilaahay wuxuu qadiray markaa subxaanahu wa tacaala inay inan dhasho qaalat rabbi inii wadactuhaa unthaa ilaahay xaaladdii way isbedeshay bay tihi inan baan umulay waxaan umulay waa inantu rag uma khudbadayn karto rag ma tukin karto ragga ma dhex ordi karto dee waxaan moodayay muu noqon inay caynkay weeye xaaladdii oo kale ilaahay wuxu uhi wallaahu aclamu bimaa wadacat ilaahayna wuu og yahay waxay umushay walaysa adakaru kalunthaa xikmadda halkaa eeg walaysa adakaru kalunthaa dakarku wiilku iyo habluhu isku mid maaha isku meel maaha waayo marka la eego meelo fara badan inanta ayaa ka faa'iido badan wiilka marka waxaan doonayaa maanta badoorka ay gabadha muslimadii ay ku leedahay iyo waajibaadka laga filayo inaynu wax ka yaro taataabano biidni illaahi subxaanahu wa tacaala mana jecli had iyo goor inaan cid cambaareeyo ama aan cid wax ku sheego laakiin mawaadicdan ka hadlaya waa mowduuc caama ma doonan inay dumarku halka ka soo boodaan ay dagaal inala galaan maanta laakiin waxaynu doonaynaa inaynu taataabano waxay leeyihiin iyo wixii lagu leeyahayba dumarku ilaahay subxaanahu wa tacaala horta fadiilad buu siiyey aanu ragga siinin marka islaamka ay timaado taasoo ah gabadhii ugu horreysay qofkii ugu horreeyey muslimay ee kalimati tawxiid ku dhawaaqay marka nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam laga yimaado dee ruux dumaru ayuu ah oo nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam risaaladii markii loo soo dhiibay uu xambaaray dee qofkii la qaaday wuxuu ahaa khadiija radia allahu canha nebiga sala allahu calayhi wasalam markuu isagoo naxsan oo gariiraya uu soo cararay gurigiisii buu yimi umuu baydhin xamza binu cabdilmutalib oo lagu yaqaanay inuu yahay nin geesiya oo ugaadhsada libaaxyada umuu tegin abu aalib oo ah adeerkii oo loo yaqaano inuu yahay caaqilkii iyo dee suldaankii magaalada laakiin nebigu sala allahu calayhi wasalam waxaa la yidhi markay mu'arikhiintu ka hadlayaan khadiija ayuu u soo cararay sidii ilmo yar dhabta ayuu markaa kaga jiifsaday isagoo argagaxsan oo naxsan wuxuu sidaa u sameeyena isagoo og dhaqanka carabtu ina laga yaabay inay cayb tahay oo lagu yasi doono nebiga sala allahu alay war ma gabadh baad u cararta maxaad ugu iman weyda rag wax kula qaban kara laakiin wuxuu ogaa miqdaarka iyo gabadhiisu meeshay taagan tahay markii waa kii soo cararay ee yidhi zammiluuni waana garanaysaa qofka markaa khadiija waa tii ugu jawaabtay
كلا والله لن يخزيك الله أبدا إلهي ولقى يا الله كما حمين يمدحون كما رقايو وحنوقت هذا مركا قبرنا مسلمات دي إلهي سبحانه وتعالى ميل شرف لا أي كسي الدين الإسلام وحا انت أقدر قف نفط الدين نفط لقى قادو إسلام آودي ولدي له ده وحي حيث سمية عمار نين أمور إيمان إسلام قف كي قوه الرياض انتي ديكي سألوك الله لغاي الروحي سلقا قاضي إسلام كآودي إسلام ده وحي أهيد سمية وحي كتوس مركا قبر المسلمات دي الشرفت أي لا ضحي قياسا وها إلا وين وحي نكهر لنا مجتمع عجيبة مجتمع هبلها آسي جري دمرها كلا دحل جري قبر له قيمة آني لهين إنك يا أضيق يا أذيرك كل بق قبر له قف كي سوق قاعدة أياك حيسن جري دمرك مركا قار كود رجع حتى رجع ويس أما هين جرين وحورن جرين قبر يسوي حكو أورن جري أرضه هبل أطل أورك سوقات لقيا مركا قار كود نسيت تاريخ ده إنه جو شيء جيسو إن قبر له أنت صانين خيمة أي لقي لسو كل بكي أي دونت إلمها أي سين يسو مستمع بينه كهل لنا مركا أن دمرك قيمة لهاي قيمة سنين مع ذلك إلهي وحكم بلا قف مسلمة قف يجوه الرياء مسلمة إنه النقطة قبل قف يجوه الرياء إنتانا والدين تنقول إنت إنه النقطة قف مسلمة أو قبل وحين تا النور دار قف يجوه الرياء حوله إسلام كأهري وحي هاي خديجة رضي الله عنها قبتها جردا الله يقانو أو حوله أو سين مانتا إنه هو بزنس ليدي oo loo yaqaan milyaneer inay magaalada ay ka tahay magaalada Makka ayay diintii Ilaahay xoolaheedii u hortay intaan la soo gaarin Abu Bakar intaan la soo gaarin dadkii ka dambeeyay Uthman oo kale intaan la soo gaarin dadkii markii dambe muslimiin Khadiija ayay ahayd radiyallahu anha qofkii ugu horeeyay ee xoolaheedii u horay diinta Ilaahay bi idnihi subhanahu wa ta'ala waxa intay noo dheer haddii sheekadu caynka ay tahay markii nabigu sallallahu alayhi wa sallam uu soo haajiray waynu garanaa in hooyadii Abu Bakar hooyadii iyo dooray ka ciyaartay Asma bint Abi Bakr radiyallahu anha waxay ka ahayd dadkii nabigu sallallahu alayhi wa sallam uu doortay gabadh 9 bilood ilmo uur ku sidas kama yaqulu ba'da al-mu'arrikhin gabadh foolanaysa oo de 9 ki dhamaysay ama ku dhow ayay inta nabiga sallallahu alayhi wa sallam quudka u qaaday wuxuu maalinta cunayo ayay buurta la kori jirtay saddexdii cisho nabigu sallallahu alayhi wa sallam uu dhuumanayay day qofkii cuntada u geyn jiray wuxuu ahaa gabadh bay ahayd oo waxay ahayd Asma bint Abi Bakr radiyallahu anha gabadh fariida ayay ahayd oo nabigu sallallahu alayhi wa sallam kidama loo bixiya daat an-nitaaqayn waxaas waxaan uga jeedaa gabadha muslimadii door muhiima ayay ka ciyaartaa marka la eego diinta meel halbowla ana way kaga taala ummadda nabi maxamed sallallahu alayhi wa sallam waayo bi salaahiha haday gabadhu hagaagto bulshadu way hagaagaysaa haday gabadhu fasaaday xumaatana waynu taaban doonaa bulshaduna way xumaanaysaa gabadhu oran jiray Sulaym oo dhashay Anas bin Malik bal xikmadeeda lagu tusaya waanu naqaan qisadeeda meer badanna waynu ka maqalay culimo fara badanna waynu ka dhageysanay Sulaym xikmadeeda bal eeg nabigu sallallahu alayhi wa sallam markii uu soo haajiray oo la soo qaxay ayay waxay aragtay raggiyo de nabiga sallallahu alayhi wa sallam hareeraha ka fadhiya cilmigii bay ka qaadanayaan diintii bay ka baranayaan taqwadii bay ka qaadanayaan nabigii bay sallallahu alayhi wa sallam haji goor la fadhiya way u tii marka nabigii ayadoo ilmaheedii raa wada ilma yaro 10 jira ayay wada ama culimadu yiraahdaan 8 jira ayo la yiraahdo Anas bin Malik Anas bay keentay way u soo badashay way soo qurxisay waxay tiri ya rasuulallah ha ku shaqeeyo kan yari ha ku shaqeeyo ha ku caawi qof gacan yara wad u baahantahay oo markaad weysada ama kabta ama de wax yar aad diratid oo de hadaad wax arrimo waaweyn saxaabada aan doon inaad
أد أدرت كان ير أدرو يا رسول الله وندعي بيتري